haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like gumaha lacaga noo saar please subscribe like and share thanks السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتي دمانتين meel kastoo adduunka ka joogtaan waa mar kale iyo taladii talaadada isbuuca waxaan ku soo qaadanayaa horta marka hore waxaan doonayaa waxa ila joogta Muno Cusmaan Dr. Muno oo ah good friend of mine masha Allah and woman advocate Muno maadaama aan jaanis u helay fursadan maanta aan u helay in aan taladii talaadada isbuucan aan adiga ka qayb geliyo ka waran ka waran arrimaha ka dhacayay oo aan ognahay ayaamaha dhan socday meel walba qabsaday oo Somali Me Too movement-gan baan doonayay inaan bal dhowr wax ka weydiiyo maxay kula tahay maxaad kula talin lahayd dumarka dadka annagoo kala ah oo bulshada kamid ah oo aanan arrimahaas ay today ayagu soo marin sidee bay uga qayb qaadan karaan sidee bay ku caawin karaan qof dhibaatada soo gaadhay marka waxyaabahaas oo kale marka maasha Allah haye Muno marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay ku soo dhawow taladii talaadada qayb ka tahay maanta maasha Allah maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekadii carabta keentay عربت الصومال الصومال من العرب باتي yes maasha Allah marka haye maanta والله هرت sheekadan hablaha soo baxday horta sheekadan awal buu jirto laakiin de qarsooniin bay ahayd صح marka horta movement maanan gaadhin صح me too yes it's a step ay hablihii ama inamadii ama dadkii ay ku dhacday dhibaatada hooyooyin haadaan hablayar haadaan صح they start talking about صح. their experiences صح and annagu as a community hadalba ma qaadi karno aamus na waacib na maxay tiri na maxay ku hadashay iyo maxaa taagay iyada meesha imikaaba wax raadinaysa you know the shaming so I think it's a big step but we didn't get to the movement صح ما شاء الله waa runtaa Muno horta hal baan kugu raacsanahay nacam waxa tiri movement ma aanan gaarin stepki ugu horeeyay oo ah bal inaan acknowledgement wardhi baa jira dadku ku dhacaan aragnaa way laga hadlay dhowr qof baa ka hadashay maxaa marka dadka annagoo kala ah oo bulshadii kamid ah sideeba qof oo dhibkii ku dhacay marka aragto ama maqasho maxaa sameyn karnaa oo dadkii waxay oranayaan waa liigu yiraahdaa ubaxay maxaa sameyn karnaa marka qofkii ku yiraahdo maxaa sameyn karnaa sidee buu qofkaas u caawin karaa oo u saacideyn karaa bulshadii horta waxaan nahay bulsho haddaan Soomaalinahay horta dhaawac badan baa soo gaaray ana don't care halkan ka nimi meel walba aan ka nimi wax dhaawaca oo trauma la yiraahdo soo gaaray marka waxa wanaagsan in dib u istaagno dhageyso horta iska dhaadhici waxa dhacay because waxaan uma nambaran hore ma maqal ceeb baa nagu xidhay so just sit back and listen let them talk give them their space dhageyso and do not react when I mean do not react ملي هي يعني إنها أورانين أنا وشقية ما إنتوا يا أهل that's the first thing we say إنهم كويوها يكهر ليس هل كوان صور دافن مريكن بتشوف ده كوي الدجني ده كلام والله دقن تاعي واي كواجا أدوك كعيسى لكن واحد هي very emotional because trauma بدن وقيون هي ولا يتام بانو ضبعهن we don't realize it but give yourself time to listen step back قف كان كلام داوع حجارسينين هذا كان أذكر سجي بقى قف كده قال من نفسي سلسو دجالمي إنت كان يمنيه قبل دي بقول يرتوك so هبودين باليردجيس and see if that talk makes sense to you if it doesn't make sense to you ده هدجيسين move on صح لكن قف كي هأوتشوا بينه هأورانين والمحاب بروف وهيسا أنا كم مرة كي قاعد عيبين غير متاجنا قف بعد داوع قاعد it's a personal experience we have to accept it we have to acknowledge it and say I'm sorry for what happened to you yes I'm not with it okay so acknowledge battery so acknowledge and then markaas maxaa kale marka acknowledge wuxuu ku imanaya imka dadkii wad aragteen ummadii way kacsan tahay walla wada hadlaya so if this is the first time openly we talk about this openly we discuss it marka ka waran qofka waxaan ku dhaceen waxa sheegay sida gudaha uga gariiraya marka waxa wanaagsan horta the victims or the survivors because you're not victim anymore you just survived it once you speak you got the courage to speak out absolutely seek therapy don't seek acceptance inuu qofku yiraahdo waad ku saxsan tahay you don't need their approval take care of you now you start your healing process go ahead marka waxa wanaagsan qofku markuu qurbada ku la yimaado inaad ka neefisid waad ka neefin kari weyd dad dhibaato ha gaarsiino صح adiga afkaaga aska qaban ka xiro ya ma sha Allah
muno waa maasha allah mahadsan tahay afkaaga ka xiro haddaadan adigu caawin karin haye ka waran marka haddii lagu yiraahdo dee wiilka hadduuba walaashiis ama eedadii ama hooyadii soo istaagto oo tiraahdo kama suurowda aniga inankayga kama suurowda aniga walaalkay kama suurowda aniga xataa odagayga mid baa laga yaabaa in odagayda laga soo sheegto maxay kula tahay midaasoo kale oo dumarkii laftigoodii ay iyagii xaqirayaan qofkii dumar ahayd oo dhib loo geystay subxaan allah walaa ilaaha illa allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah baan ka taaganahay because qof bani aadamo aad damaanad qaadi karaysid oo aanan naftaada ahayn ma jiro hadda waxaa laga yaabaa haddaad yar qodid inaad wax heli doontid waxaa laga yaabaa inay siday qofkaasi perceptionkiisa u qaatay maybe naxadintii inay ka dhigtay a bigger thing which is scientifically waa la ogyahay laakiin weligaa ma odhan kartid kama suuratoodo waa human being dadka dilay weligood samay lahayn qof baad dilaysa dadka dumarkooda dilay so dadka dilay ma yidhaahdaan kuma talagala ama isma yidhaahdaan weligood qof baad dilaysaa raggan dumarkooda dilayaan wax isleeda maalin buu kusoo toosay yidhi gabadheedaan dilaya yani waxaan nolosheenna ku sameynayna horta dumarka sideenaba hoos baan u dhignaa dumarka inta raggaba iga daa ragga annakaa baawarka siinay raggu waa aabayaasheen waa caruurteena waa dadkeennii laakiin they have in Somali culture way baawar weyn bay haystaan annakiina baa u alooleeya waan hor cararnaa dumarkii baa hor ololeynaya oo hor cararaya qabiil ma lihid ninkaagaad raacda hadhowna marka lacagta la raadinayo lagu guri reerka aana inaan u dhalan ha reerkaas u goblamay xeerka sabashada la yiraahdaa taas sabashada ninna dhaxda ha u xidhanina hadduu inankaagu khaldaniya sharka ka qabo waayo maanta wuu dhaafayaa laakiin hooyo baa tahay ka qabo hadduu ninkaaga yahay ka qabo so muno nacam waxaad ka sharqabisay maasha allah Dr. Muno ka qabo hadduu inankaaga yahay ka qabashadu siyaabo badan bay noqon kartaa ka qabashadu ma inaan ceebtiisa asturaba de horta ceeb asturka fiiriya ereyga ceeb astur ceebtiisa astur ay ku leeyihiin ma inaan qalad ku sameeyay ku difaaco qariya horta ceebta astur waxa yidhi qofku markuu qofka walaalkii ceebtiisa asturo ilaahay ceeb buu asturo sama laakiin ninka fasaad galay ilan gabadh wax ma kubsatay nin baa kubsaday I'm sorry marka ninka fasaadka galay gurigiisii ka baxay gabadh soo xumeeyay adiga gurigaaga muxuu la fadhiyaa edab darro do you think it's a one act no do you want to take that responsibility qabriga adaa galaya hooyo kuma raacayso aabba kuma raacayo walaal kuma raacayo inan kuma raacayo so you going by yourself marka lagu yidhaahdo maxaad afkaagaas ugu markhaati faraha typingka from behind the scene from behind the scene aad taabgaraynaysid waxaanad soo qoraysid ma wax islada ilaahay kuma oga ma ilaahay baa la khaayimaya raqiib catiid that's right marka waxa wanaagsan ilmahaaga tarbiyadda guriga ka timaada ka bilow inantaada la sheekayso rumayso ka hadashi markay kula hadasho qabo and say I believe you mom hooyadu waa dhabarka hooyo qofkii aan hooyo haysan haddaad doorashada wehel u noqotid dhabarka u noqo oo inantani maxay hadda u soo baxday inankana waxaa tada hooyadaa baan ahay runta ii sheeg how many times you did it did you do it what are we gonna do about it that's right but guriga ha ku qarsanen because wixii la qariyaba qurun baa ku jira and then when you hide it you keeping that facade in your home you are part of the problem nafsigu wareeg right nafsigu wareega waa wareegto kugu soo noqon wuu soo noqonaya and that day you're not gonna be happy marka maasha allah Dr. Muno aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan ma soo koobi karno marar badan baan ku soo noqon doonaa dadku waxay yiraahdaan maxaad uga hadlaysaan mar walba ka hadlaysaan may waanu ka hadlaynaa waan wadi doonaa marka waxaan haddana ku soo gabagabeynaynaa maxaad leedahay dadka oranaya maxaa mar walba uga hadlaysiin ugu soo celcelinaysiin horta ummadeena the trauma maxaa la yidhahdaa Soomaali mar dhaawacayna soo gaaray keli baan u taaganahay qof walba keli buu taaganyahay mid walba wuxuu doonay keligii shaqeeyo wax wanaagsan aan soo tagno annako aan iska dhigin qof Soomaaliya ka oranay waxa ma aqaanina ma jiro haddaanad aqoon ana tacliim u lahayn oo aanad khibrad u lahayn walaalay fadlan la xiriir dadka u leh please caruurtan ha u yeedhina and meelo dangerous for themselves and their psychological health please don't do it there's some people who will put their mouth where their foot at so caruurtan we need to support them that's right we need to